بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل توعنا ونكسر قيارتا هو ذي نقد داون رسائد الهان تيمبا ميل بو الدنيا كجوك تاني يسي والبو نو داون رسام هالكني وليبان كولو وحا مقالة سورج قدك يقلق يا جامع حسين محمد وسوو كما قدر جامع نمبس اسلامر كارها سحفي مدح بنان وسوو كهول قلم مقالة سورج ودن كا سويسرلاند ان جامع كسر دو برنامجك هذا مصدر ليبان وردوهاي وكاغا ما دعينا يا عديقي والبا اصحابته كحرن ليبان كو ليبان كولو وكاغا ما دعينا كوني كوجر وردوهاي ان جامع waxaad warbixin guud naga siisaa guud ahaan xaaladda dadka Soomaalida ee ku nool waddanka Switzerland هذا مصدر ليبان horta Swiss-ka wuxuu ka tirsan yahay Europe ama Central Europe ala dhahaa inta badan Soomaalida ee waddankan ku yartahay لكن جبي هان تودي ما ركتي يوروب وضمada ugu fiican oo kamid yahay ama nolosha ugu wanaagsan ay ka haystaan Soomaalida ku nool dalkan Switzerland جامع waddankaas waxa la sheegaa in ay aad u adag tahay marka ay timaado qaadashada dalashada Swiss-ka arrinta maxaa ka jira هذا مصدر ليبان arrinta sharci qaadashada ee dalkan Swiss-ka been ma ahan inta badan uu adag yahay laakiin markii dhinac kale laga fiiriyay uu fudud yahay waxa jiro waddankan sharci ayaa u yaala sharcigaas hadii aad ka soo gudubtidna macnaheedu waxa weeyaan inuu ku fudaana waddanka dalashada waddankeena qaadatay laakiin sharciga loo maray ayaa adag ama sida loo qaatay marka la fiiriyo jaamac guud ahaanba wadamada kale ee Europe Switzerland xagga nolosha iyo helida fursadaha shaqada maxay kaga duwan tahay waddankan waa waddan shaqo dad badan oo ku nool oo qaxooti badan oo ku nool oo shaqaysta laakiin waddankan shaqadiisa lagu helo xitaa way adag tahay laakiin qofkii wax barta oo isdhexgal sameeya luqad yaqaana dadaal sameeya uma adko laakiin waxa uu adag qofka inta waddankan imaaday oo guriga iska joogo ma aragtay meel wax ka bilowsan garanaynin ama qof caawiyo san haysanin qofkaas way ku adagtay inuu shaqo helo وقرت dadka Swedish-ka ah ee waddanka degan amaba loogu yimid macaamilkoodu marka aad fiiriso dhinaca isdhexgalka mujtamaca kale ee ajnabiga ah ee soo duldegay sidee bay ula macaamilaan wallahi liban hada mastarta waddankan dadka degan way kala gedisan yihiin dad waxa jira qaxootiga nacab iyo dad waxa jira qaxootiga jecel qof kasto ama waddan kastana saas uu leeyahay laakiin aan inta aan arkay waddankan inta ugu badan waa dadka soo dhaweey inkastoo lagu xanto dadka qaxootiga nacab waay la dhaho laakiin aan intaan arkay ama inta waddanka ku noolahay waxyaabo dhibaato ah ama ma aragtay qaxootiga nacab wali ma aragtay dadku way kala gedisay qof caajir familkiisa inta ku nool hooyo ama saxaabo ku nool mise qof nin inta ku nool oo xaaskiisa u dacweynayo mise carruurtiisa u dacweynayo iyo qof waxaa jira ma taqaanaayo siyaabo waxbarasho u imaado ama qof waxaa jira ma aragtay soo taariibo ma aragtay Afrika soo maro wadamo badan Afrika kamid soo maro Talyaaniga ka soo galo way jirtaa laakiin waddankan inta ugu badan dadka tahriibiga soo galaan guud ahaanba markaad fiiriso magaalooyinka kala gedsan ee waddanka Switzerland dadka Soomaalida ee halka degan ma ku fiican yihiin dhinaca ganacsiga ma jiraan kuwa wax bartay ma jiraan qaar galay dhinaca dawladda oo hadday noqon lahayd dhinaca aqoonta siyaasadda iyo arrimaha bulshada oo kale liban aad ma xasan tahay horta waddankan waa waddan xirxiran dhanka siyaasadda marka wali ma arkin ama ma maqlin qof Soomaali ah ama qof ajnabi ah xitaa oo Soomaali markii la soo qof ajnabi ah oo dawladda ma aragtay ku jiro la shaqeeyo waa laga yaabaa qof turjumaan inuu ku jiro ama waa laga yaabaa qof markii siyaabo kale oo caawinaya dawladda ama waxyaabo kale ka sameeyaan isdhexgal keenaa way jirtaa laakiin ma jirto qof dawladda siyaasad ku yeeshay ama dawladda la kula sida ma arag Congress-ka Mareykanka Ilhaan Cumar ama Ingiriiska iyo wadamadaas kale tacmal ma jirto qof dawladda waddankan oo qayb ka ah ama dawladda ka shaqeeya laakiin way jirtaa dad caadi ah oo ma arkayno nolosha caadi kamid ah shaqooyinka nolosha caadi kamid ah way jirtaa laakiin ma jirto qof oo ma aragtay dawladda u shaqeeyo dadka Soomaalida ay ku nool Switzerland iyagu madad tiro kooban oo iska warhayo hadii lacag ay wacaan kala warqaado oo iska war heli karaan soo dad waddanka dhinaciisa oo ku firsan oo aan midna kale ka wareegin
هذا مسألة اللي بان سؤال شو أيود زوج فرحسن على سبب سؤالها وقف عن السويديو وجرتا قبل هذا سويسكا لبعض اللح قبل وككوبية قبل والب مارك دت كدقين أيك مارك تيسكو حرين سيدا عني كبرها لكن س قبل وين أوجي هاي أوفيشيال أو مارك تي أو سومالي أو أكتاي أو جاليد عمل مجرت لكن جاليد يرير وجرتا مركي نبدأ عن أو سيسكو عاوية. idinku ka Soomaali ahaan مثلا maadaama tii qurba joog ku nool meel ka baxsan wadankii xiriir noocee ah ayaa la leedahay guud ahaan isku joogkiina oo idin wadankii Soomaaliya oo halka aad ka soo jeedeen marka ay timaado arrimaha la xiriira gurmadka abaraha dhaca مثلا masaa'ibka kale ee dagaalada sababeen xiriirkiinu waa xiriir noocee ah liban aad ma santahay way jirtaa walaalo badan oo maaragtay samafalka ka shaqeeyo dad badan oo jirto oo maaragtay u ololeeyo markii Soomaaliya dhibaato ka dhacdo ama markii fasahaad imaadaanba waxay doontaan baad way jirtaa walaalo badan oo jiro la yiraahdo walaalaha Swiiska iyo waliba kuwa kala jiro aan maqlayo laakiin way jiraan in maaragtay dad isku xiran halkan jooga inta lacag aruuriyaan dhibaatooyin wadanka ka jirta dad uga caawiyaan way jirtaa dhinaca kale mujtamaca Soomaalida ay ku dhaqan Switzerland sidee bay ula falgalaan arrimaha siyaasadaha isdiidan ee dalka ka jira marka ay timaado arrimaha doorashooyinka oo kale iyo buuxa mararka qaar dadka qurba joogga ah ay laga yaabo inuu geliyo walwal cusub oo hor aad ma sida liibaan mar kale dabcan wadankan qurba dadka ku nool inta badan wax arrimaha siyaasadda wadanka kama warhayaan buu mahadsanyahay kaasi wuxuu ahaa jaamac Xuseen Maxamed jaamac Nimbas oo isaga oo ku sugan magaalada Zurich ee wadanka Switzerland waramayay haddaba tan iyo inta dib dambe hawada barnaamijkan oo kale hadii Allah uu dilo u raali ka noqdo dib mar kale hawada ugu kulmi doono aniga iyo saaxiibkay jaamacba labadeeduba waxaan idin leenahay fi amaanillah